السلام عليكم maalin wanaagsan ku soo dhawaada casharkeeni saddexaad ee maadada physiology-ga casharkeenu maanta waxaynu ku baran doonaa qodob aad muhiim u ah oo ah cell membrane sida balantii hore baynu ahayd cell membrane maanta waxaynu kaga hadli doonaa marka laba qodob oo aad muhiim u ah qodobka koowaad aynu kaga hadli doono ah structure and functions of cell membrane qodobka labaad waxaynu kaga hadli doonaa cell transportation cell membrane ama plasma membrane waxaa kaloo loo yaqaanaa phospholipid bilayer phospholipid bilayer waxaa loo yiri ama waxaa loogu magac daray waxa weeye waxa uu ka samaysan yahay phospho oo ah phosphate iyo lipid isu tagay ayuu ka samaysan yahay waana gidaarkaasi waxa u fududeeya in aysan usoo gudbin wax walba oo ah hydrophilic hydrophilic maxaa loola jeedaa waa wax walba oo aan ogolayn ama inta badan lid ku ah jacayl kaliya biyaha oo lid ku ah lipidiska meesha soo ma gudbi karaan marka kaliya waxa soo gudbi karo cell transportation markaynu tagnay ka hadli doonaa waxa kaliya soo gudbi kara cellka wax walba oo ah lipophilic iyo hydrophilic waxa loo jeedo waxa weeye intaynu ku sharxi doonaa wayna aadi doonaa ka hor intaynu aadin ka hor laakiin waa inay muuqaalkan si fiican u fiirisaa muuqaalka inta noogu yaala ama aad u jeedid waxa weeye waa type kamid ah ama nooca uu yahay gidaarka derbiga aynu u naqaano cell membrane oo ah xuubka laga soo galo unuga xuubkani waxa uu inta badan caawiyaa ama inta badan uu si fiican u daboolaa uuna ka qayb qaataa barrier una u yahay in cellka uu waxna bixiyo waxna uu soo qaato xataa communicationada kale uu la sameeyo cellska kale inta badan isaga ayaa qabto hadda intaynu ilmaana marka inta waxaynu ku sheegnay hadday intaynu gudagelin qaybtaani sabuurada ah waxaynu sharaxnay in uu ka kooban yahay phospholipid bilayer magaca labaad uu leeyahay waxa loo yaqaanaa phospholipid bilayer phospholipid waxa loo yiri waa qaybtani hore waxa ay ka kooban tahay qaybta gudaha ah madaxani waa hidkii iyo tail ay ka kooban tahay oo istaaran marka kani waa phospholipid kan kalena waa phospholipid bilayer marka wuxuu u tahay ereyga laba lakab la in uu yahay laba lakab oo lakab hoose iyo lakab kore ay haysta ayuu ka kooban yahay guud ahaan marka waxa uu ka kooban yahay components of cell membrane markaynu ka hadlayno labo proteins oo ah boqolkiiba 50 proteins boqolkiiba 50 boqolkiiba cell membrane waxa uu ka samaysan yahay proteins iyo phospholipids-ka waa kuwayna hadda sheegayno oo ah iyagana boqolkiiba 50 marka waa 50-50 ayuu ka samaysan yahay proteinada waxay qabtaan marka waynu sheegi doonaa phospholipid hawshiisa hadda inuu ku guda jirnaa marka gidaarkani phospholipid-ka muxuu qabtaa horta phospholipid-ka marka inuu ka hadalno qaybtani madaxa ah gudba oo ay jirta dibadda iyo gudaha cellka waxa ay ka qayb qaadataa inta badan ay qabataa in co-functionskeeda markaynu ka hadlayno waxa ay qabataa waxa ay kala celisaa ama ay u tahay barrier qaybta gudaha ee cellka gudihiisa ah oo intercellular fluid-ka ah iyo extracellular fluid-ka banaanka ah hore ayaynu soo sheegnay waxa kale oo ay qabataa communication-ka ay ka qayb qaadataa labo waxa kale oo ay qabataa cell transportation iyada ay qabato cell transportation waa maxay cellka waxa uu u baahan yahay ay soo xareysaa waxa uu soo doonayna banaanka ay geysaa shaqooyinka ay qabto cell membrane-ka ay ku ka tahay cell membrane-ka waxa uu kaloo inoo qabtaa inta badan uu fududeeyaa markaynu ka hadalno in wax walbo lipid ah ama lipid formation ay soo gudbaan wax walbo biyo ahna dibadda lagu reebo sababta loogu reebayna waxa weeye waxa laga hortagayaa cell swelling inuu dhaco si uusan u dhicin cell swelling waxa muhiim ah in cells-ka ay lahaadaan gidaarkaas oo kala celiya intercellular fluids iyo extracellular fluid-ki marka cell membrane-ka qaybtiisa dibadda oo ah extracellular fluid iyo intercellular fluid-ka waxaa gidaar waa sidaynu sheegnay midkani oo ah cell membrane-ka cell membrane marka waxa uu qabtaa ama uu ka kooban yahay qaybtani gudaha waxaa loo yaqaanaa hydrophobic ama waxaa kaloo ay magaceeda aan dhihi karnaa inay tahay hydrophobic waxaa kaloo ayna dhihi karnaa inay tahay lipophilic ereyadani waan sharxi doonaa qaybta dibadda ah marka iyadana waxaa loo yaqaanaa oo ah madaxa tailiska qayb kastoo marka tailka soo xigta hiidka dheh cafwan qayb walbo soo xigta hiidka iyo qayb walbo soo xigta tailka magacyo ay kala yihiin qayb walbo soo xigta marka madaxa oo ama hiidka soo xigta qaybta phospholipid bilayer markaynu fiirino waxaa loo yaqaanaa hydrophilic ayaynu loo yaqaanaa waxaanu naqaanaa hydrophilic waxaa kaloo dhihi karnaa lipophobic
phobic iyo feeling waxa la jeedo hal mar ayaynu aadayna wax walbo marka gudaha aan soo xigan waxaa loo yaqaanaa ama ku jiro qaybta tailka ah hydrophobic iyo lipophilic ayaa loo yaqaanaa waayo maxay kala yihiin ereyadan inta badan waxay ka kooban yihiin lipo iyo hydro iyo waxa ay kaloo ka kooban yihiin labadan erey oo ah philic iyo phobic. Lipo means lipids waa waxay dufan ahaa hydro means water waa biyihii philic love jecel waa kuwa jecel biyaha waa kuwa jecel lipidska dufanta waa hore uma sheegnay phobicna waa hate waa kuwa neceb marka kuwani oo lipophilic loo yaqaano lipophobic loo yaqaano waa waxay neceb yihiin waxa lagu daro midkaanina haddii lagu daro hydro oo kale hydrophobic ay noqoto waxay noqonaysaa biyo necbe haddii lagu daro lipid waxay noqonaysaa lipophobic oo ah waxay neceb yihiin ama aan la tusi karin wax walba oo dufana hydrophilic hadday noqoto oo aan philic wax labada shay ku darno mid waxa weeye waxa ay jecel yihiin lipidka midna waxay jecel yihiin waterka biyaha marka ereyadaas waa sidaas marka qaybtan gudaha ah dhammaanteeda waxa ay neceb tahay ama ay aan bal la soo gudbi karin ama ay soo dusi karin wax walbo ka samaysan biyo qaybtanina waxaa inta badan hiidka ah markaynu fiirno phospholipidka qaybta hiidka ah iyadana waa hydrophilic wax lipid ah iyadana soo ma gudbiso ama looma dhaweeyaba meesha ku nagaanayaan inay soo mudaan goonideed marka boqolkiiba 50 waxaan dhahnay waa proteinadaas waxaa ka mid ah peripheral proteins ka mid ah integrated proteins ka mid ah transport proteins oo aynu ku hadda sheegayna ayaa ka mid ah dhammaan waxay ka qayb qaataan marka midkaani ah waxay ka qayb qaataan cell membrane-ka hadda structural cell membrane-ka meesha aynu ku gudbaynaa qodobka labaad waa cell transportation aynu galna marka proteinadaynu sheegayna maxay qabtaan hadda hal ayaynu sheegaynaa waxa muhiim ah marka inaynu fahanno ama aynu ogaano waxa uu ka samaysan yahay oo ah protein iyo phospholipid boqolkiiba 50 protein ah iyo boqolkiiba 50 oo phospholipid ah phospholipid bilayer maxaa loo dhahay waxaynu sheegnay in heat iyo tail uu ka kooban yahay oo ah phosphate iyo lipid la isku daray phosphate iyo lipid la isku daray waxay qaateen magaca phospholipid bilayertana waxaynu dhahnay waa laba lakab oo ah lakab kore iyo lakab hoose gudaha waxaynu dhahnay waxaa loo yaqaanaa hydrophilic hydrophobic ayaa loo yaqaanaa oo ah biyo ma soo gudbaan qaybta gudbanaankana waxaa loo yaqaanaa lipophilic ayaa loo yaqaanaa wax la yiraahdo dufan inta badan lipophobic ayaa loo yaqaan wax dufan ah ma soo gudbaan casharkan qaybtiisa inta ayaynu ku gudbaynaa ereyadaana waa xagga ayaynu ku sharxnay shaqooyinka uu qabto cell membrane waxaynu ka hadalnay inuu qabto cell transportation inuu qabto communication to other cells inuu kaloo qabto aynu sheegnay ah in uu sameeyo barrier extracellular fluid iyo intercellular fluid uu yahay aynu u gudubna marka qaybta kale oo ah cell transportation labaad haddaynu u gudbayno oo ah cell transportation waxaa muhiim ah inaynu ogaano horta cell transportation-ka halkuu ka dhacaa cell transportation-ka waxa uu ka dhacaa horta cell membrane-ka waana qodobka maanta aynu ka hadlayno waxa meeshan keenna wax kale maaha cell membrane-ka plasma membrane phospholipid bilayer-kan ayuu ka dhacaa in qaybta dibadda ah waxa laga keeno oo gudaha la keeno wax walba oo gudaha cellka ku jiraan la qaado dibadda la geeyo inta ayay ka dhacdaa marka waxay u baahan tahay ama u kala baxdaa markay cell transportation-ka aynu ka hadlayno laba ayay u kala baxdaa cell transportation waxaynu u qaybin doonaa labada u qaybin doona waa kuwa energy required ah kuwa u baahan tamartay u baahan yihiin waxaa waaye ATP ADP energy required transport iyo mid aan oo ah non energy required transport kuwa marka waxay u baahan yihiin tamar si ay u gudbaan kuwana si loo gudbiyo uma baahna tamar uma baahna kuwa u baahan tamartay u baahan yihiin ay qaadan doonaan inta badan ku gudbiyaan oo ah adenosine triphosphate iyo adenosine diphosphate labadaani waa inta badan energy carriers ay isticmaalaan oo ah ATP adenosine triphosphate iyo ADP iyadana ah adenosine diphosphate haddaba marka kuwaani u baahan tamarta waxaa ka mid ah kow saddex ayaynu marka u qaybin doonaa qaybta kood waxaa loo yaqaanaa active transport midka labaad waa endocytosis midna waa exocytosis
saddexdaani waxa ay soo hoosgalaan ama ay u baahan yihiin tamar si ay u sameeyaan cell transportation. kuwani marka waxaa ku waa active transport. Active transportka waxa uu qabtaa meesha ay ka badan tahay oo ka qaada ion gradient-ga, meesha uu ku yaryahay uu geeyaa. Aw wuxuu sameeyaa macnaha homeostasis ama equilibrium ayuu sameeyaa haddii ioniska qaar jirka ku jira sida waxaa inta badan tusaale loo soo qaataa sodium potassium bomb. Sodium potassium bomb oo kale ah inta badan waxaa la ogyahay in cellska ay gudihiisa ay ions ku jiraan, banaankana ay ions yaalaan. Ionadaas oo ay kala yihiin ama elementyada inta badan oo kala yaalo electrolyteskaas oo kale ah kuwa positive wata iyo kuwa oo negative wata. kuwaan oo kale markaynu ka hadlayno oo sodiumka iyo potassium waxay ka yihiin ioniska loo baahan yahay in equilibrium lagu sameeyo. Processka loogu sameeyo marka active transportka ay soo hoos galo waxaana ka mid ah sodium potassium bomb. waxaa la sameeyaa salka markuu ku bato sodiumka ay banaanka ay ku bato maxaa la dhahayay potassiumka waxaa la sameeyaa hal ka mid ah potassium ayaa la soo qaadaa, laba ka mid ah sodium ayaa salka laga saaraa. noocaas oo kale marka oo la sameynayo waxaa loo yaqaan active transport. waxay u baahan tahay marka energy carrier kaas oo ah ama ATP ama ADP waa la socdaan filan. Okay, endocytosis oo ah la qaadan doono loo qaato selka gudihiisa, iyo exocytosis oo ah in laga soo saaro selka in la soo saaro la soo tuuro banaanka lagu soo tuuro waxa selka gudihiisa ku jirana waxay u baahan tahay energy. labadan energy mid ka mid ah ayay u baahan tahay mirkaaga ku hay. Okay, non energy required ka waxaa ka mid ah midkani oo ah passive transport. Passive transport kaani marra qaar tan energy required ka loo yaqaan inuu yahay passive transport. Passive transport kaana ayaa marka wuxuu u kala baxaa saddex. waxaa loo yaqaanaa osmosis ko isaga naftirkiisa ayaa kala baxo osmosis, diffusion iyo wuxuu u kala baxaa facilitated. oo ah marka osmosis transport, diffusion transport iyo facilitated transport. midkani osmosis ah waa sida wuxuu ka mid yahay passive transportka. Passive transportka waa non energy requirement. isagana waxaa marka meesha uu ka yar yahay laga qaadaa, meesha uu badan yahay la geeyaa oo ah wuxuu ku xiran yahay gradient-ga ama concentrationka ayuu ku xiran yahay sida kii hadaay oo kale waaye. balse kii hadaay waxaa la sameynayay waa la isku dheelitiray iyadoo tiro badan gudaha laga qaadayo ama tiro badan meel laga qaadayo tiro yar la geynayo. midkan laakiin waa uu ka yahay waa la isku dheelitiray inta badan osmosiska ayaa ka mid ah, diffusionka ayaa ka mid ah, facilitator ayaa ka mid ah. saddexdan waxay soo galaan passive transportka. waxay laga wado iyo waxay yihiinna haddaynu sheegno kuwani osmosiska waa sida xaanshada oo kale, ama haddaynu ka hadlno suufka oo kale. suufka haddaad biyo ku shubtid qaabka ugu dhex duso ama mara haddaad soo qaadatid qaabka biyahaas ay ugu soo dhex dusaan waxaa weeye osmosis. Okay, diffusion haddaynu ka hadalno waa qaabka si toos ah adagood ugu soo shubaysid oo ay soo gudbayaan iyagoo sameynayo dulan ama sii duleelinaya ama sii gudbayo meesha. Facilitated waxaa waaye waxa ayaa fududeeya. wax fududeynaya marka waxaa waaye transport proteins ayaa fududeeyo. proteinadaas marka facilitated proteins loo yaqaano waxaa kow ka ah protein loo yaqaano transport proteinska ayaa kow ka ah transport proteins. proteinada marka sameeyo in ay facilitative ka qayb qaataan waxaa kow ka ah transport proteins iyo receptor proteins. transport proteins iyo receptor proteins waxay qabtaan marka in uu dhaco marka facilitated oo ah in la fududeeyo in shaygaas dibadda laga soo qaado gudaha la keeno, gudaha laga qaado dibadda la geeyo waa la fududeeyaa. waxa fududeeya waxaa waaye proteins. proteinadaas waxay kala yihiin marka transport proteins iyo receptor proteins. transport proteins waxay qabtaan wax ayay gudbiyaan. receptor proteinskana waxa meesha yimaada ayay qabtaan. hadday yimaadaan salka gudihiisa khaasatan qaybta madaxa ah oo hiidka ah fariin ayay gudbiyaan. haddii uu ka yimaado extracellular fluidka uu yimaado qaybta banaanka ahna marka uu kusoo dhego uu qabto receptorkaasi wuxuu sameeyaa fariintaasi waxay jirtaa in transport proteinska nervooyinkii ama wax walba ku jira meesha ay dhaqaajiyaan. kadib markii fariimihii signalska la diray ay qabtaan oo la isku dheelitiro waxaa la sameynayaa wax walba oo meeshaas ku jiray transportationkii ayaa active laga dhigaya oo ah in wax banaanka laga jiriyo endocytosis lagu sameeyo oo exocytosis lagu sameeyo selka banaankiisa la geeyo ama endocytosis lagu sameeyo selka gudihiisa la soo geliyo. casharkeeni marka aynu kaga hadlaynay marka cell transportation khaasatan cell membrane oo kaga hadalnay cell transportation ko iyo aynu kaga hadalnay qodobka kale ee aynu falanqeynay oo ah structure and functions of cell membrane. halkan ayuu nooga yahay dabcan sida aan filay casharkani si fiican ayaad u fahantay. haddii ay jiraan waxyaabaha qaar mugdi kaaga jira qaybta hoose commentiga inoogu reeb. channelkan waxaad kala socon doontaa casharkani physiology-ga oo taxanaha insha Allah.
haddii aad doonaysid casharka koowaad ilaa casharadii hore hor u baxayna waxaad samaynaysaa qaybta playlistiga ka siiraa dhammaadkaani casharkeena ayaa inta nooga eg casharkan casharka ku xiga intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum